ديال لا كلا waxa ka dhacay arin la yaab leh arday macallin quraan u dhigaya yar macallinkii quraanka u dhigay ma garat waa gartay way direen macallinkii quraan u dhigay guriga u dhow dugsigu seexaday saas bay qaatay loo wiilo min 12 sano jiro min 12 sano jiray ahaayeen macallinkii uu jiifay u tagay madaxay kala dhacay faaskii kabadi yar oo soo sheegeen niman la jooga loo sheegay kabadi saasa macallinka lagu warrabay meedia waalidka macallinka sidee laba canugo 12 sano jir iyo wax u dhow jiraan u dileen miyuu hurdayay miyuu xirnaa sidee muxuu qabanayay isaga intaas adeeg wuxuu qabanayay macallinku horta wuxuu ahaa nin 3 sano deegaanka ku dhigay ahaa aniga macallinkii ahaa ninka la waa gartay macallinku yaalka dhowr jaray ka caariyeen dugsiga dhowr jeer hadda u dhimay deegaanka marka maantay adiyaano xogta ma sheegi karo waxa soo tashkiilay laakiin ani galabta mid haanta marka macallinku u tagay dadkii waqti deegaanka ay yiraahdeen ninku macallinka asoo jibay yaalka dibay gabadha baa inta biliisku wasaayn ayaa la jooga anaga dilay yiraahdeen waa gartay marka sabab ma sheegeen maxay u beegsadeen sababta waxay yiraahdeen dugsigan ku soo celceliyay waa dhiftamay kabacdina daawa ku gaarnaa macallinka dhaafsina ma la hayaa hadda carruurtaas wala haya liiska la keenay wax ku caawiyay ma jira dilkaas labadooda dhaasiisan wax ku caawiyay oo madax banaan sheey macallinka imisa jir way ma nin weyn baa oo daa macallinku aan 2006 dugsiga ka jibiyay macallinka waa fadlan iyo ku dhawaad ay 25 sano deegaanka wax ku dhigay macallinka 40 sano jiruha waa garta marka ma ayaga soo yiri macallinkii baan dilnay mise ilka laga helo xogta ma ayaga soo yiri macallinkii way dilay ardayda jiifay u tageen mid baa u sheegay macallinkii soo dilay oo sheegay kabacdi ardayda waxay yiraahdeen way iskiciyaan way tukaneen macallinkii ahayda mishii qooftaan wanaag afnaa u tageen mishii qiyadii macallinkii soo dilay xabtii muqtaa mid kamid u diray macallinkii meeyda loo tagay macallinkii ku qalalay marka carruurtan hadda dugsiga ma dhiganayeen mise waa ka baxeen dugsiga dhiganayeen joogo maanta waa la ficli carreehay maanta dugsiga ka soo celiyay miya dugsiga ka carreeyeen waa lagu soo celiyay dugsiga ka baxay lagu soo celiyay waaya marka labadoodu ma hal faas bay wateen mise dhowr xabay wateen hal faas booliska waxay ku sheegeen labada wiil marka 12 sano jiraana jiray waxaana ku dilay halkaas markii hore isha ku dhintay meesha isha arkiya ku dhintay ma aqoon ku soo fiirina saka oo dhintay waa gartay Allah wax sheegna Allah naxariisto guriga kaligiis oo deganaa mise waa la joogay macallinku waxa guriga kaligiisa deganaa guriga guriga u dhawaa cid dignin laakiin asoo dugsiga guriga u dhawaa si xajiro kitaab ma isku gaarajin waalidiintii dhalay labadan wiil ee dilka geystay ka waran ma joogaan maxay hadal hayaan ama sheegayaan intii deegaanka dambirilay goolkii ku yaalay jireen weligiina min galabta la sheegay goolkii ka kacay waa gartay meeshaan ayakina xataa la keenay kale ayakina way wala ataa ku maqla iga waran waa sidee deegaanka maxaa hadda ka jira dadku maxay leeyihiin deegaanka alwidla dadka waa sidee dareenkooda maxaa la sheegayaa dareenka deegaanka fahmin kasta deegaan iska yarna waa nin 3 sano wax ku dhigayeen macallinka deegaanka aan ugu baxay nin malikin xaaladda macallinka ay soo baraha هذا واحد شيء لما نقال الله ونحرس صار يا الله لطيف مقعيس ولا المعلنك الله ونحرسته مع عبد السلام محمد اللي مع عبد السلام محمد وحان غيره عبد السلام محمد